madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wada in xariga uu ka jira dekada Hobyo ee gobolka Galgaduud taabid oo aqbalay xilka qaadistii lagu sameeyay kuna baaqay in ciidamada la dul dhigay xarunta gobolka Banaadir laga qaado madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuu magacaabayo guddi farsamo oo ka shaqeeya nabadeynta degmada Cabudwaaq ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo sheegay maqaamka Muqdisho inay tahay arrin dastuuri ah faahfaahin ka soo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose taliska ciidanka taraafikada Puntland oo sheegay in baaris ay ku hayaan dadka weerarka ku soo qaaday xarunta ciidanka iyo in ka badan 10 qof oo Soomaali ah oo lagu xirxiray dalka Masar subax wanaagsan marka la dhageystayaal waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 22ka bisha koowaad January sanadka 2018 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada risaalo ugu waaweyn u diyaar garooba dhageystayaal warkii uu faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wado in xariga uu ka jiro dekada Hobyo ee gobolka Mudug waad maqli doontaan balse gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa xalay la kulmay gudoomiyihii xilka laga qaaday Taabid Cabdi Maxamed Faysal Cabdullaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa gabi ahaanba xalay la soo afjaray xiisadii maalmahan ka taagneyd gobolka Banaadir ee ka dhalatay khilaafkii arrimaha maqaamka caasimadda taasoo uu xilka ugu dambeyn ku waayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed kulan ka dhacay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu dhaxmaray gudoomiyaha cusub gudoomiyihii hore taliyaal ciidan wasiirro iyo xubno siyaasiyiin ah waxaana looga hadlayay arrinta ku aadan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka siyaasiga ah ee sababtay in Taabid ugu dambeyn uu xilkiisii ku waayo kulanka ayaa ahaa mid albaabada ay u xirnaayeen isla markaana wasiirada taliyaasha iyo gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ay isaga xal wareysanayeen hanaanka ugu habboon ee lagu soo afjari karo khilaafka sidoo kalena lagu diyaarin karo xafladda xil wareejinta ah ee gudoomiyaha cusub xilka uu kula wareegayo gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyaha xilka laga qaaday ayaa isku afgartay in munaasabadda xil wareejinta ay u dhacdo si habsami leh lagana gudbo xilliga kala guurka ah ee uu galay gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa sida qorshaha uu yahay waxa uu dib ugu laabanayaa xarunta gobolka Banaadir si uu u diyaariyo munaasabadda xil wareejinta iyadoo lagu wado inuu magacaabo guddi xil wareejin oo dhankiisa ka socda oo qabanqaabiya xafladda ama munaasabadda uu xilka ku wareejinayo sidoo kale gudoomiyaha cusub gobolka Banaadir Engineer Yariso ayaa isna magacaabaya guddi xil wareejin oo diyaariya xafladda xil wareejinta ah iyo habsami u socodka howlaha xilliga kala guurka gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo war-saxaafadeed uu soo saaray warbaahinta u aqriyay ayaa aqbalay xilka qaadista lagu sameeyay isagoo u hambaliyay gudoomiyaha cusub Taabid Cabdi Maxamed waxa uu ka sheekeeyay khilaafka sababay in xilka laga qaado waxyaabihii uu ka dhashay waxaana uu tilmaamay in muhiim ay tahay ilaalinta amniga caasimadda magaalada Muqdisho madaxda qaranku waa rag aan soo wada shaqaynay hal gardheerna soo wada galnay go'aano masiiri ahna soo wada gaarnay haddaba maxaa dhaliyay khilaafka waxyaabihii dhaliyay khilaafka siyaasiga ahaa ee baryahan taagnaa waxaa sababay labadan arrimood ee soo socota kow xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka Banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sarreynta sharciga labo shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega aasaasiga horumarinta dhaqaalaha amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horeyso matalaadda dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo duqii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in uu dalbanayo in ciidamada laga qaado xarunta dawladda hoose
oo shalay ciidan dowladda ka tirsan ay la wareegeen si howlaha kala duwan ee xarunta Vicha Governo ee dowladda hoose ay si habsami leh ugu socdaan. Wuxuuna sheegay inay muhiim tahay ilaalinta xasiloonida gobolka Banaadir oo si guud iyo si gaar ah ugu baahan nabadoonnimo iyadoo la ilaalinayo sareynta sharciga. Ayuu sheegay Taabid in uu u tanaasulay. magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo adag si tan maanta taagan looga gudbana waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adeeg. In gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambaliyeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban. Si taasi u dhacdo dhibaato kalena aanay u iman waa in si degdeg ah aqalka dowladda hoose ee Xamar xayiraadda looga qaado. haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xil wareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas. khilaaf muddo soo jiitamayay balse dabayaaqadii toddobaadkii aynu soo dhaafnay xooggiisa soo shaacbaxay ayuu ugu dambeyn xilkiisii ku waayey gudoomiyihii gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, iyadoo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay sababta ugu weyn ee xilkiisa uu ku waayey duqii hore ee Muqdisho ay ku sheegeen inay tahay raadinta maqaamka magaalada Muqdisho oo xarun u ah dowladda federaalka Soomaaliya. Haddii lagu guuleysto soo dhicinta maqaamka Muqdishona ay sabab u noqonayso in dowladda dhexe ay weydo xarun ay saldhigato oo ay ka taliso. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in xariga uu ka jaro dekedda Hobyo ee gobolka Mudug. Maxamed Abuukar Dabaashe ayaa warkan inoo faahfaahinaya. safarka madaxweynaha Soomaaliya ee ku marayo gobolada dalka ayaa la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo. Madaxweynuhuna waxa uu tagi doonaa magaalooyinka Hobyo iyo Cadaado sida uu qorshuhu yahay oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud iyo Mudug. degmada Hobyo ee gobolka Mudug hore waxa uu gaaray xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka uu ku jiro gudoomiyaha guddiga dastuurka Cabdi Qeydiid, xildhibaan Fiqi iyo weliba xubno ka tirsan golaha shacabka. xildhibaanad Ubax Tahliil oo ka mid ah xubnaha ku sugan degmada Hobyo ee gobolka Mudug oo la hadashay idaacadda Risaale waxay sheegtay in maanta qorshuhu yahay in Hobyo uu soo gaaro madaxweynaha Soomaaliya. sidoo kale waxa ay sheegtay in qorshuhu ay qayb ka tahay in madaxweynuhu markuu soo gaaro Hobyo uu xarig ka jiro dekedda degmada Hobyo oo dib u dayactir lagu sameeyay. ammaanka iyo soo hadal qaadeh oo sheegtay in hadda sidoo hore ay ka dhaanto marka loo eego ammaanka degmada Hobyo. wuxuu imaanayaa insha Allah biri la wadaagi doontaan markuu madaxweynaha halka uu soo gaaro. haddii Ilaahay yiraahdo haasaan jecelnahay. wallahi amnigeeda aad buu fiican yahay. waxa iskaliya oo ilaalinayaan ma jirto. ummaddu waa isdhex degan tahay. marka mar hore ugu dambeysay waxyaabaha la sheegay burcadadeed iyo waxa hore ka jiray. marka meeshuna waa nabad. aad bay u wanaagsan tahay. 5 sano ugu dambeysay aad bay u wanaagsaneyd. ma rabo inaan sii hordhaco wixii aan rabnay inaan TV-ga ama ummadda ay wada maqasho madaxweynaha koor. laakiin reasonka ama sababaha loo yimid waxa waaye waxa uu yeesheen ay ku taanayeen ay jeclaayeen weligood in dekedda Hobyo la furo. marka insha Allah inay suurtoodo ayaan rajaynayaa biri. imaado in si rasmi ah dekedda Hobyo u furo. haddii Ilaahay yiraahdo saasaan jecelnahay. may waa insha Allah wax bilow ah waaye. man rabo inaan sii hordhaco. sidoo kale waxa uu qorshuhu qayb ka tahay in madaxweynaha la filayo inuu gaaro degmada Cadaado halkaas uu kula kulmo odayaasha dhaqanka reer Cadaado oo suluug badan ka keenay in caasimadda Galmudug xiligan loo raro Dhuusamareeb. xubnaha ku sugan Cadaado ayaana aad u dhaliilay xilli horena sheegeen in Cadaado ay ka mamnuuceen madaxweynaha maamulkaasi Galmudug Mastar Xaafa. safarka madaxweynaha ayaa qaatay 15 maalmood wuxuuna socdaalkiisu ku bilaabay magaalada Garowe caasimadda Puntland isagoona booqday magaalooyin badan oo ka tirsan Puntland. deetana kaga sii gudbay dhanka iyo Galmudug oo hadda uu safaro ku marayo. sida uu qorshuhu yahay waxaa la filayaa in maanta markuu gaaro Hobyo oo u sii gudbo dhanka Cadaado oo mar kale dib ugu laabto. deetana safarkii madaxweynaha uu ku tagay gobolada ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug halka uu ku soo gabagabeeyo. dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu magacaabayo guddi farsamo oo ka shaqeeya nabadeynta degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Cabdirashiid Cali Dubad ayaa warkan faahfaahinaya.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay guddi farsamo oo ka kooban odayaal iyo xubno kale in loo sameynayo magaalada caabudwaaq oo ka tirsan gobolka galguduud wuxuu sheegay guddiyadan muhiimadooda inay tahay sidii magaalada caabudwaaq ay u noqon lahayd meel kala dambeyn ay ka jirto wuxuuna tilmaamay in la xoojinayo maamulka ka jira hadda sidoo kalena dib u habeen lagu sameynayo qeybaha garsoorka iyo amniga oo ah saldhigga maamul sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa shacabka caabudwaaq ugu baaqay inay maqlaan baaqyada ka imaanaya odayaasha si loo gaaro guulo iyo nabad lagu noolaado oo horu socod leh madaxweyne farmaajo ayaa kan galmudug axmed ducaale geele xaaf ugu baaqay in il gaar ah uu ku hayo degmada caabudwaaq oo mararka qaar ay ka dhacaan dagaal beeleedyo waxaan doonaynaa horta guddi farsamo inaan uga tagna meeshaan ama aan idinkeena guddi farsamo guddigaas farsamo oo ka shaqayn doona guddi odayaal odayaasha la dhegaysto oo la ictiraafsan yahay oo la maqlo oo odayaasha dhaqanka ah in laga soo saaro inta uu ka go'o talada ka go'do kadibna madaxweyne xaaf waxaa laga rabaa inuu maamulka dhiso marka halkan haddii kii dhisnaa uu jirana uu xoojiyo maamulkaas oo ah magaaladan meeyar inay yeelato inay leedahay garsoor maxkamada ay leedahay iyo inay leedahay security chief saddexdaasaa loo baahan yahay intaasna annagu aan kala shaqeenno intaas marka la hela marka odayaashu maamulka ma soo galayaan waxay soo galayaan siyaasadna ma soo galayaan waxay soo galayaan markii maamulka oday dhaqameed kale oo sheeganayo inuu dad matalo uu rabo maamulka inuu dhibo haddii maamulku naftiisu isdhibaayo oo loo baahdo inay soo dhex galaan laakiin siyaasadda shaqo kuma laha xasiloonnida keliya shaqo ku leeyihiin madaxweynaha soomaaliya waxaa ku wehelinaya socdaalkiisa kan galmudug axmed ducaale geele xaaf madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi carabey madaxa golaha xukuumadda ee dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiiro iyo mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay maqaamka Muqdisho inay tahay arrin dastuuri ah Axmed Tifo Xasan ayaa ka waramaya kadib khilaaf soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa ee dalka iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed taasoo keentay in markii dambe xilka laga qaado Taabid loona magacaabo guddoomiye cusub inuu yeesho gobolka Banaadir ayaa arrintaas markii ugu horreysay waxaa ka hadlay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi waxa uuna sheegay in muhiim tahay in la taageero guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka in maqaamka Muqdisho ay tahay arrin muqadas ah loogana fadhiyo cid kasta oo xil ka qabata dalkan waxaan isleeyahay magacaabidda la magacaabay injineer Yariisow way ka duwan tahay waxay la tahay inay tahay markii ugu horreysay ee wasiir dhowr xil soo qabtay loo magacaabo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada taa macnaheedu waxa weeye maqaamka caasimadda in sare loo qaaday oo heerkaas la gaarsiiyey waxaa kaloo la hubaa maqaamka dadku jecel yihiin iyo xuquuqda deegaanku ma aha kuwa shaki ku jira waa kuwa dastuuri ah waa kuwa cid kasta waajib ku ah oo qarankan hoggaankiisa qabta hadalka ka soo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ku soo aadaya xilli shalay xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed loona magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya 14 qof oo Soomaali ah ayaa xabsiga la dhigay dalka Masar waxaana laga qabqabtay xaafadaha ku yaala degmada Nasr City oo ah meel si weyn Soomaalida ay u degan yihiin sida ay xaqiijiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira ciidamada amniga oo aad u hubeysan ayaa gudaha u galay maqaaxi Soomaalida ay ka cunteeyaan oo ku taala gudaha dalka Masar dadka la xirxiray oo isugu jiray arday iyo qaxooti ayaa waxaa loo gudbiyay saldhig ku yaala degmada Nasr City si loo hubiyo in ay yihiin dad sharci ku jooga dalka Masar mid ka mid ah dadka Soomaalida waxa uu sheegay 14 qof ayay ciidamada qabteen oo isugu jira arday iyo qaxooti ciidamada geesaha ayay ka soo galeen
kadib waxa ay wateen dadkii meesha joogay ilaa iyo hadda ma garanayo sababta rasmiga ee ka dambeysa xarigooda ayuu yidhi maxamed cabaas oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka masar bilihii ugu dambeeyay dowladda masar ayaa waxa ay bilowday in ay xabsiyada dhigto ajaanibta dalkeeda ku sugan ee aanan haysan sharciga dalka masar sanadkii tegay 2017 dalka masar waxaa lagu xiray soomaali aad u badan oo gaaraysa boqolaal xilliyo kala duwanna dalkaasi galay in ka badan 5,000 qof oo soomaali ah ayaa ku nool dalka masar kuwaasoo siyaabo kala duwan dalkaasi u jooga warkaas ayaa ugu dambeeyay dhegeystayaal warkii subaxnimo oo saakaad kala socoteen idaacadda Dhisaale ee magaalada Muqdisho ciduu warkan seega dib wuxuu kaga heli karaa website-kan internetka ku leenahay ciwaankeenu yahay radio-dhisaale.com